kusoo dhawaada taxanayna maanta. Taxanu waxa uu ku bilaabanayaa annagoo aragna dhammaan dadka oo mashquul ku ah abka Love Alarm. Waa app lagu soo dejiyo telefoonka gacanta. Qorshihiisuna waa inuu ku siiyo ogeysiis haddii qof ku dhow ku jecel yahay, laakiin waxaa jira hal qof aan xiisaynayn abka Love Alarm-ga, Jojo, sababtoo ah waxa ay leedahay cabsi ka weyn jacaylka. Inkastoo dad badan oo agteeda jooga ay jeclaayeen, Jojo waxay aad u xiisaynaysaa shaqada iyo iskuulka maadaama waalidiinteedu ay dhinteen. Hadda waxa ay la nooshahay eedadeed iyo ilmaheeda, kuwaas oo ula dhaqma sidii adoon. Jojo waxa ay ka shaqaysaa dukaan eedadeed markii ay iskuulka ka timaado. Sidoo kale waxa ay shaqo dheeraad ka qabataa goobta dubista hilibka. Waxaas oo dhan waxay u samaynaysaa inay waxbarashada isaga bixiso waxna ku cunto. Qofna ma dareemo in dhib haysto. Laakiin intaas kaliya maaha. Jojo waxay lacag ku taageertaa eedadeed iyadoo eedadeed ka tagtay kadib dhimashadii hooyadeed. Halkaasna waxaan ka fahnaa Jojo inay tahay gabar adkaysi badan oo mas'uuliyad leh inkastoo ay yar tahay. Sidaa darteed mararka qaar Jojo waxa qasab ku noqota inay cunto raashin dhacay oo eedadeed turto si ay lacag u kaydiso iskuulka iyo nafteeda. Maalin ayaa saaxiibteed ku tiri abka soo degso, waxaad heli doontaa dad badan oo ku jecel. Jojo waxa ay sheegtaa in taleefankeedu uusan taageerin abka fiirshankan. Saaxiibteedna waxa ay ku tiri hooyada ayaa ku sii karto taleefan cusub, laakiin Jojo weligeed uma aysan sheegin saaxiibadeed in hooyadeed dhimatay. Waxa ayna ku tiri aniga ka maarma. Dhanka kale waxaan aragnaa San oo ah wiil qurux badan. San waxa uu ka soo noqday Mareykanka kadib markii uu tartankiisii dhameystay. Wuxuuna aaday maqaayad saaxiibkii ka shaqeeyay si uu u salaamo. Wuxuuna arkay isagoo banaanka taagan. Wuxuuna ugu yeerayaa inuu gaariga soo raaco, laakiin wuu diiday, taas oo San ka yaabisa. Daqiiqado kadib waxa uu arkayaa gabar qurux badan oo maqaayadda ka soo baxaysa. Yaan raacaya ilaa ay ka raacayso baska. San waxa uu gartay in Yaan uu gabadhaas jecel yahay. Markaas kadib San waxa uu ku yiri Yaan, ma qolkayga seexatid? Taas ayaana Yaan ka yaabisa. Yaan waxa uu ku yiri ma rabtaa inaad ka tagto qolkaada qasriga ah oo aad seexato qolkayga yar. Waxaan ogaanaynaa in Yaan oo la noolaa San tan iyo yaraantiisii, sababtoo ah hooyada Yaan waa shaqaalaha guriga San. Labadooduna waxay aroortii hore u baxaan iskuulka. Markii San uu iskuulka soo galo, Love Alarm-giisu wuu dhawaaqayaa maadaama uu yahay wiilka ugu quruxda badan iskuulka oo gabdho badan ay jeclaayeen. Si kadiisa ayuuna u arkayaa Jojo oo iskuulka ka baxaysa. Way isfiiriyaan kahor inta aysan socon. San waxa uu dareemayaa Yaan inuu indhaha ku hayo Jojo. Marka ay iskuulka joogaan, San waxa uu ku yiri Yaan u sheego jacaylka, laakiin Yaan wuu diidayaa isagoo leh suurtagal ma ah, markasta waxa ay la socotaa wiilal kale. San waxa uu isku dayayaa inuu ku qanciyo in laga yaabo inay si xiriir la lahayd Son. Halka waxa aan ku baranay in wiilka San uu ka hadlayo lagu magacaabo Son, kaasoo markasta Jojo u raaco meel kasta. Markastana waxa isku daydaa inay ka cararto Son, mana u dul qaadan karto. Maalin markii ay Jojo iskuulka baxaysay, waxay dareentay qof daba socda. Markay jeesatana waxa ay aragtay San. Waxa ayna ku tiri maxaa ay fiirinaysaa? Waxa uu ugu jawaabayaa inuu u yimid inuu wax u sheego. Si kadiisa ayuuna u ogaaday inuu eeda jecel yahay, isagoo u dhawaanaya. Waxayna bilaabeen inay wada socdaan iyagoo kaftamaya. Tanina waxa ay keentay inay Jojo shaqada ka dhaahdo. Markii ay timaadana waxay aragtay eedadeed oo sugaysa, wayna ku qaylisaa. Eedadeedna waxa ay ku tiri adiga culays ayaa igu noqotay. Waxayna ku dhahdaa hadallo xunxun. Dhanka kale Sanna waxa uu aaday guriga saaxiibkii Yaan, wuxuuna weydiinayaa Yaan haddii uu jecel yahay Jojo. Yaanna wuu inkiray. Yaanna wuu diidayaa inuu eeda jecel yahay. Sanna waa ku farxaya isagoo ku yiri way fiican tahay, maxaa yeelay aniga maanta ayaan u tagay. Yaanna waxa wajigiisa ka soo muuqda calaamado xanaaq tilmaamaya. Wuuna ka tagay San isagoo saad u xanaaqsan. Waxa uu seexday isagoo murugaysan. Iskuulka dhexdiisa waxaan aragnaa Daaf, wiil qarsoon dadku aysan jeclayn, laakiin gadaashiisa waxa ku qasan sir. Waxa uuna jeclaa Gumi oo ah ilmeeyada Jojo, waana qof isla weyn. Wuxuuna u diray fariin afka ku saabsan isagoo ku casuumay. Iyaduna ma aysan tagin, balse Jojo ayaa halkaas soo martay. Daagna wuu oonaya sababtoo ah Gumi ayuu rabay. Markaas Jojo ayaa dejisa. Ugu dambeyntiina waxa uu siinayaa taleefan cusub oo afka ku rakiban yahay hadiyad ahaan. Maalintii xigtay, ardayga Sig ayaa soo galay fasalka isagoo qaylinaya, isagoo u dhaqaaqay dhanka Jojo si uu wax ugu dhufto. San isma difaaci karin sababtoo ah Sig aad ayuu xoog badan yahay. Markii qof ayaa ordayay si uu ugu sheegay saaxiibkii in la garaacayo, Sanna si degdeg ah ayuu uga soo baxay difaaci. Nasiib darro isaga waa la garaacay. Markii ay Jojo ogaatay, waxa ay u tagtay Sig si ay u weydiiso sababta. Waxayna la yaabtay markii uu qirtay inuu ayada jecel yahay oo uu isbedelaayay darteed. Jojona waxa ay ku tiri haddii aad jeceshahay Love Alarm-ga ayaa ay sheegi lahaa markaan ku dhowahay. Signa waa la yaabayaa markii uu saab ku dhawaaqay. Jojona waxa ay si ku qanacsaa inay kaliya yihiin saaxiibo, wax ka badanna aysan jirin. Maalintii qof ayaa fariimo u diray iskuulka oo dhan, isagoo u diray sawirro muujinaya Jojo iyo San oo wada socda. Sidaas ayayna ku fashilmeen. Gumi ayaa imaata waxayna garaacdaa Jojo dadka hortooda, iyadoo u hanjabaysay inay u sheegi doonto qof walba wixii ku dhacay waalidkeed ka hor inta aysan dhiman. Markaas kadibna waxaan wax badan ka baranaynaa Love Alarm-ga. Waxaan ogaanaynaa inuu shaqaynayo kaliya markii qofku jecel yahay, kuuna jiro wax ka yar 10 mitir, iyadoo lagu cabirayo calaamadaha neerfaha bini'aadamka. Sidaa darteedna si dhab ayaa uga kartaa haddii qofku jecel yahay iyo haddii kale. Kadib waxaan ogaanaynaa saaxiibka dhow ee Jojo, Johan, inuu ahaa qofkii qaada sawirrada oo u diray iskuulka oo dhan. Sababta ayaa ahayd masayr maadaama uu Jojo jeclaaday. Waxayna noqotay mid cad in Johan ay eedu jeceshahay, Signa uusan ogeyn. Kadib San Jojo waxa uu weydiiyay inay isku mar furaan afka Love Alarm si ay u hubiyaan in dareenkooda uu dhab yahay in kale. Waxayna isu tageen 10 mitir gudahood oo aan cid kale joogin. Markii ay fureen Love Alarm-gii, labadoodu way la yaabeen maadaama uu u yeeray labadooda. Tanina waxay la macno tahay dhab ahaantii inay isjeclaayeen. Laakiin waxa la yaab leh markii Jojo iskuulka ku dhex socotay, Love Alarm-gii mar kale ayuu yeeray. Waxayna heshay farxad iyadoo u malaynaysa in San uu joogo meel u dhow, balse markii ay fiirisay ma aysan arkin. Sidaa darteed waxa ay raacday calaamadaha, taasoo ku hagtay qolka caafimaadka iskuulka. Markii ay furtay albaabka, way yaabtay markii ay aragtay Yaan oo ku jira. Yaanna wuu ogaaday inuu jecel yahay. Si degdeg ah ayuuna gacanteeda u qabsaday, kuna qariyay daaha sariirta maadaama uu arkay San oo iyada daba socda. San ayaana qolka soo galay si uu u hubiyo
yaana waxa uu ku yiri isagoo iska dhigaya qof baaskiil ka dhacay sidaana uu soo galay qolka caafimaadka intii lagu jiray qadada. San waxa uu la kulmay Jojo wuxuuna ka codsaday inay ku biirto socdaalka ay iskuulku u aadayaan jasiiradda lagu magacaabo Jeju, laakiin Jojo way diiday sabab gaar ah oo la xiriira taariikhda qoyskooda. Waxayna u sheegtay inay shaqo ku mashquulsan tahay. Waxa uu ku yiri haddii adigu aad na tagin anigana ma tagayo. Markaas ayuu siiyay kaarka cuntada iskuulka si aysan qadada u dhaafin kana cuntayso iskuulka sida ardayda kale. Waxa uu ku yiri naftaada daryeel oo si fiican u cun. Jojo aad ayay ugu faraxday maadaama hadda ay si joogto ah u cuni karto iskuulka cuntada si lacag la'aan ah. Kadibna waxa ay kaligeed ku fariisatay miis. Halkaas ayaana ku ogaanaynaa tan iyo markii ay la xiriirtay San in la bahdilayay, laakiin waxa ka yaabiyay markii San u yimid oo dhinaceeda fadhiistay inta ay cuntaynaysa wuxuuna u dhiibayaa waxyaabo cuntadiisa kamid ah. Waxa uu ku yiri si fiican u cun, shaqo ayaa leedahay. Tanna ma aysan jeclaan gabdhaha kale ee iskuulka kuwaas oo indhaha ku gubaya. Kadib Gumi waxa ay ku tiri iskuulka oo dhan Jojo waxa ay isticmaashay San si uu qadada uga bixiyo. San oo difaacay ayaa la kaftamay oo u sheegay inay Jojo ka leexdaan, wuuna ka yaabsaday isagoo ku dhahay marnaba qof aan adiga ahayn dan kama lihi. Sidoo kalena waxa uu sheegay inuusan aaminsanayn xanta ay ka faafiso Jojo. Kadib suxufiyiin ayaa imaadeen si ay waraysi ula yeeshaan hooyada San oo ahayd xidig caan ah, waxayna iska dhigaysaa inay yihiin qoys faraxsan. Waxayna been u sheegaysaa warbaahinta iyadoo leh wax kasta oo guriga aniga qabto wiilkayga dartii, laakiin shaqada guriga shaqaalaha ayaa qabata oo ah hooyada Yan. Taasuna waa sababta Yan iyo San ay saaxiib u noqdeen yaraantoodii. Yanna wuu ku xumaaday San maadaama uu ogyahay in qoyskiisu aysan jeclayn waxaasoo dhan ay u sameynayaan warbaahinta darteed. Waxaa intaas dheer Yan ayaa mar hore badbaadiyay nolosha San markii ay hooyadii isku dayday inay ka takhalusto iyadoo siinaysa daawo hurdada badan. Markii uu yaraa maalintii xigtay Jojo waxa ay aqbashay inay raacdo safarka jasiiradda sababta oo ah San dartii. Intii lagu jiray safarka Jojo waxa ay la kulantay Million iyadoo u sheegtay runta ku saabsan dhimashada waalidkeed. Isaguna waa xanaaqay waxa uu ku yiri maxaa igu sheegay aniga daalka San joogi lahaa naftayda ayaan badbaadsan lahaa. Habeenkii dhammaantood waxa ay isugu yimaadeen qolka hotelka waxayna ciyaarayeen ciyaaro ayagoo ciyaartii ku dhex jira. Deb ayaa kacay taasoo keentay in Jojo cabsi badan ay dareento. Waxayna xasuusatay wixii ku dhacay qoyskeeda markii ay yareed iyo sida ay isugu dayday inay toosiso balse aysan ku guuleysan. Ugu dambeyntiina waxa qasab ku noqotay inay furto daaqada si ay u badbaadiso nafteeda. Waxayna aadayiyadeed laakiin arrintan Jojo uma fududayn. Markasta waxa ay dareentaa inaysan waalidkeed badbaadin. Markii ay yareed maalintii xigtay ee safarka San waxa uu geeyay mooto isagoo jasiiradda ku wareejinaya, laakiin waxa uu si joogto ah u fiirinaya iyada taasoo sababtay inay shil galaan. 4 sano kadibna waxaan aragnaa mudaharaad ka socda wadooyinka Kuuriya oo ka dhan ah abka Love Alarm. Waxaan sidoo kale aragnaa Jojo oo noqotay qorsheeye aroos. Shuruudaha guurka ee xilligan waa in lamaanaha isguursanaya taleefanadooda ka furan abka Love Alarm si loo ogaado inay isjecel yihiin. Haddii ay isjeclaadaan waa la isu guurinayaa, haddii kalena waa la joojinayaa guurka. Kadib waxaan aragnaa Ligo oo jimicsi sameynaya ka hor inta uusan aadin jaamacadda. Wuxuuna arkay dad badan oo isugu yimid meel codbixin ah. Markii uu fiiriyay waxa uu arkayaa taleefano badan oo dhulka yaala oo ku furan yahay abka Love Alarm. Agtoodana meydad badan ay jiifaan. Dhammaan taleefanadu waxay ahaayeen kuwa abka Love Alarm ku shaqeynayay. Waxaana ogaanaynaa in meydadka ay yihiin dhalinyaro da'dooda u dhaxaysa 20 ilaa 30. Waxayna noloshooda ku dhameeyeen sunacbid sababtoo ah Love Alarmigi marnaba uma yeerin tan iyo markii ay bilaabeen 4 sano ee la soo dhaafay. Tanina waxa ay u keentay inay dareemeen in bulshadii laga diiday oo aanay jirin qof jecel. Waa ku mahadsantahay daawashadaada. Waxa ana soo geli doonaa mar dhow qaybta xigta.